waxaa muddooyinkii u dambeysay cabasho xoogani ka soo yeedhisay cisbitaalka guud ee magaalada Burco kuwaas oo ay ka deerinayeen shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco. Haddaba gudoomiyaha gobolka Togdheer Mudane Xamse Maxamed Cabdi ayaa kormeer ku tagay cisbitaalka guud ee magaalada Burco. Kormeerkaas ay ka dambeysay cabasho qayladhaan soo taraysay muddooyinkii u dambeysay oo ka soo yeedhisay qaybaha kala duwan ee ku dhaqan bulshada gobolka Togdheer. Gudoomiye Xamse oo mid u booqday bukaan-jiifka ku sugan waararka kala duwan ee cisbitaalka guud ee magaalada Burco. gudoomiyaha waxa warbixin la xiriirta xaaladda bukaan-jiifka iyo sidoo kale cisbitaalka ka dhageystay qaar ka mid ah shaqaalaha cisbitaalka. midwayftay neersanka ka shaqeeya cisbitaalka maternity-ga in badan waanu ka shaqeynaynay waxay tahay muddo ilaa 8 sanadood oo ka shaqeynay xaaladiisu way fiican tahay marka ka sii dambeysay way sii kordhaysaa marka ka sii dambeysay way wanaagsan tahay iminka maxay toolay iminka cisbitaalku uu wacan yahay wuxuu ka soo kacay xilligii abaaraha xilligii maxay toolay dhibaatooyinka iyo waxa soo dhanay jireen dadka noo yaala wadada meelo badan ka yimaadeen ilaa iyo gaalkacyo waa ayaga noogu yimaadaan ilaa la saacanood waa isbitaal kaliye aad nagu soo xidhayn gobolada bari oo dhan. isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Faadumo Cismaan ayaa iyaduna dhankeeda ayaa sharaxaad ka bixisay qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay cisbitaalkani waxaana ka mid ah hadaladeedii waararka qalliinka gaar ahaan waxa weeyaan waararka qalliinka dumarka oo la keeno dadka ama qalliinka ama gubtay ama bahala qaniineen oo marka nabar waaweyn ku yaalin oo u baahan dhaymaha oo mar walba taas waxay ahaan jirtay had iyo jeer dadka mid ku dhiba oo mar walba dhayma loo sameeyo la soo iibiyo alaabta oo la keeno hadda waxaan bedelay in cisbitaalku isagu isku kharash gareeyo inuu soo iibiyo goosaska waaweyn ee la googoynay. ugu dambeyntii waxaa kormeerkani ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Mudane Xamse Maxamed Cabdi isagoo tilmaamay in kormeerkani uu yahay mid ku kuurgalayo xaaladda dhabta ee uu ku sugan yahay cisbitaalkani maadaama uu yahay mid ka mid ah baahiyaha asaasiga ee bulshadu u baahan tahay waxaana ka mid ah hadaladiisii. maanta waxaanu ku soo maray kormeer cisbitaalka guud ee magaalada Burco oo runtii ah halbowlaha koobaad ee mujtamaca rud xaqiiqna ay tahay ama ay wanaagsan tahay markasta in laga warhayo xaaladda uu ku sugan yahay cisbitaalka kormeerkan aanu ku soo maray waxa kormeer warmaqabta waxaan uga jeedaa cid maana sii wargelin annagoo rabnay inaanu ogaano xaaladda dhabta ah ee cisbitaalku uu ku sugan yahay haddii aanu sii wargelin lahayn waxa laga yaabaa inuu samaysmi lahaa diyaar garow fara badan oo ay madaxda iyo shaqaalaha cisbitaalku sameeyaan laakiin taas ma dhicin waanu ku soo maaragtay kalahnay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa runtii wixii shaqaalaha iyo madaxda cisbitaalka iyo madaxda wasaaradda oo ugu horeeyay isuduuhu waxaan u nimi shaqaale jabsan waxaan u nimi cisbitaal nadiifa oo nadaafadiisu aad iyo aad ay u heer sareyso waxaa noo soo baxday xaqiiqada rasmiga ah in cisbitaalku maalinta ay ka sii dambayso uu ka soo reynayo oo ka soo wanaagsanaanayo warbixinada ayna siiyeen waxaa ka mid ah in cisbitaalada ama waararka oo aanu waad u galay waad walba maalinta ka sii dambaysa ay ku soo maaragtay kordhayaan bukaan-jiifku taasoo muujinaysa trustiga ama aaminaadda ay maaragtay dadka reer Burco ay u yeesheen ama ay u qabaan cisbitaalkooda dadweynaha reer Burco dadweynaha reer Togdheer waxaan ku baraarujinayaa inay ku soo xidhmaan cisbitaalka oo ay imika ka heli karayaan adeegyada ay u baahan yihiin waxaan kaloo halka jecelahay inaan maaragtay fariin uga diro dadka muxsiniinta ah ganacsatada inay iyaguna ka warhayaan cisbitaalka. waa Shaakir Cabdi Axmed SBS TV magaalada Burco.